waxaan u malaynayaa muddadii aan nimid halkan waxaa jirta iyadoo dadku dhib badan uu ka jiro ama abaar ha jirto ama ha jirto nimankii joogay oo wixii samafal iyo ganacsi wax waliba u istaageen intii aan joognayna inta badan mayna dhicin xaalad amni sugis iyo mooye dhobley haba ugu roonaato oo xoogaa relief ha soo gaadho oo samafal ah laakiin waxaad moodaysay in dadku wax badan oo dhibaato iyo weli iyagoon ka bixin haddana markii hore loo dhaqaaqay oo hay-aduhu inta badan ay nagu xidhayeen in wax la taro inay roobabkii haddana jidadkii ay xidheen deegaanka waxaan odhan karaa xaaladda amniga iyo xaaladda nolosha labadaas xaaladood baa ugu muhiimsan waxaan ka imid hadda waqti dhow muddo laga joogo usbuucaan ka badnayn xeebta ilaa raskamboni oo aan odhan kara dadkii joogay markaanu ugu tagnay waxaan ugu tagnay dadku iyagoo nolosha ay ku noolaayeen ay tahay nolol aan hadda waxba lagu qiimeyn karayn sababtoo ah ganacsi ma jiro samafal ma jiro dadkaa wax gaadha xaalad halkaasay ku taagnaayeen dhulkan hadda aan joogno noloshu waxay iyadana gaadhay hadda waqtigii ugu adkayd sababto waxaad garanaysaa waqtigii hore marka roobku da-ayo wax badan baa dadku ay heli jireen oo raashinkaa lasii dhigan jiray markaa dhul go'doon ahaa muddo 5 bilood 6 bilood 7 bilood raashinba inuu soo gudbo loo ogolayn maxaad u malaynaysaa oo haddana jidadkii ay ku xidhmeen waxaan idiin sheegayaa nolosha hadda say u adag tahay waxaad ku qiyaas qaadan kartaan waxaan shalay kiish beriisa ka bixinay qooqaani $140 hal kiish oo beriisa 3 milyan iyo 500 oo kun oo shilin Soomaaliya baa laga bixiyay oo macnihii $100 uu yahay 2 milyan iyo 500 waad garanaysaa markaa noloshu dadka sida ay ku tahay ninka isagoo lacagtii haysto wuxuu waayayaa wuxuu ku gata lacagtiisi waan odhan lahaa in dadkaas bal lala soo gaadho wixii mucaawinaya loo samayn karaya haddii la helo diyaarado inay wax daadin karaan haddii la helo sababtoo ah wixii raashinkii iman lahaa intaasoo bilood ka hor nimankan aan la dagaalamayna dhibka badan baa dadka u diiday oo qofku ganacsigiisii dee waxba kuma helayo waxba ma jiraan taa waxaan is leeyahay waa xaaladda nololeed oo qiyaas waxaa idinku filan intaas wax suuqa ma jiro ganacsi xori ma jiro xoolihii dadku nin walba meel siduu ula cararayay sababtoo nin hal neef lahaa halkii neef zaka looga qaatay aad maqlaysa leeyahay zaka halkii neef u baxay aan hadda dhibaatadaa kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa maanta marxaladda dadku ay ku jiraan waa halkaas kareetada raashinka ka soo qaada waxyaalaha hadda ugu badan kareetooyin baa tuulooyin aad u fogfog ka soo qaada oo kiishkii laga yaabo inay ku soo qaadaan 400 kun oo shilin Soomaali 4 kiish bay ku qaadi 400 kun bay 30 kilomitir ka yar ku qaadaysa dadka dhibkaas haysta waxay kaliftay markaa ciidan ahaan wixii la heli karayay hadda maalin dhaweyd qolada militariga Kenya waxay halkan ka bixiyeen raashin ay dhobley siinayeen oo ahaa raashinka ciidanka loogu talagalay inay wuxuun dadka kala qayb qaataan waan odhan lahaa qoladiinan ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo wasiirada iyo nimankan saraakiisha booliska ee TFG wax badan baa baashi fallaadh isgilgilasho idinkagama hadhayse dadkan mas-uuliyad baa idinka saarayd oo qayla dhaan ba idinku leedahay arrintu inay soo fido gobollada gaadho oo wixii dadkan loo qaban karay wixii la caban karaya la sheego waxay la tahay waa muhiim waa idin taala waa maanta waa maalintiini fursadda idinkaas kale dadkan idinka idin sugan hadda waxaa in badan hadda la isweydiinayay wafdi baa imanayo maxay dhaqaalo wadaan oo maxay keeni doonaan oo maxaa bal dadkii dhibaataysnaa ay ka qaban doonaan malaha waad la noqon doontaan iyo waxaad wadaan baan arki doonaa laakiin qaayaha waxaan uga jeedaa xilku idinku idin saaran yahay baashu ka warwareegis ma laha duruufta dadkuna bimacna alkalima waxaan idiin sheegayo waxaan practical u soo arkay ninka hadda jooga xeebta ugu shaysa ee kari karaya inuu maanta intaasoo malaya la soo baxo ee suuqii laga xayiray raashinkii in loo keeno oo meel wax u iibgeysta uuna jirin muxuu ku noolaanayaa ninka halkan jooga loodii abaari ka dhammaysay oo ganacsigii shabaab u diideen oo haddana roobkii jidadka ku xidhay waad garanaysaa xaaladdiisu say tahay waxaan odhan karaa anigu dadkan alxamdulilah roob baa da-ay waa la doogsaday indhuhu aad bay u waxaysan yihiin waxaa hadda ka mid ah hadalladii ra-iisul wasaare ku-xigeenka in magaalada lasoo maro meelihii saldhigga booliska iyo ceelashii way ficnaan lahayd laakiin away magaalo kuu nool baa soo wareysan lahayd biyuhu halkaasay kuu jiraan haddaad dabaalanaysa diyaar waa laydin geyn laakiin baabuur laanroobal intuu idin geeyo dhex socon maayo oo hal baabuura magaalada dhex socon banaankaana la warwareegi karaa laakiin lama wareegi karo magaalada gudaheeda waxba nina kama qaban karayo sababtoo roobkii shalay galab ku bilaabay xalay oo dhan wuu da-ay
waxay ku roontaa intaan hadda bacaadka wax dejisay marka masaladaasi waa arrin dhibkeeda iskale xaaladda amnigu waxaan is leeyahay intii hadda aan horey u dhaqaaqnay ama walaaleen ciidamada Kenya soo galeen iyo ciidamadii hore ee ka dagaalamayay oo ahaa ciidan TFG da ay leedahay oo ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo ciidamada Raskamboni iyo dawladda Kenya ciidanka militariga Kenya ama isla hawl galeen wax badan ma isla horey baa loo dhaqaaqay dhinacaas ilaa xeeb intaas laga tagay oo 70 kilomitir gudaha in loo gala xeebta oo dhinaca ilaa Buurgaaba la tago halkan hadda shalay ciidamadu afmadow 15 kilomitir meel u jirtay joogeen xogaa socodkii waxa istaakul ku ah maxaad haddaad iska sii gudubto roobkii baan meel laga sii maraba aan lahayn xaaladaasi waan isleeyahay waa la socon lahaa laakiin hadda raxmadka ilaahay wax ka sheegan mayno way aad buu u fiican ilaahay baana hadda iska leh laakiin dhaqaaqii badnaa la sameyn lahaa wax badan waxaad moodaa roobku inuu hakad inuu geliyay inta gacanta lagu hayana xaaladda amnigu way iska fiican tahay haddii marmar la sheego wadaa la galay nin tabar waayay baa wadooyinka galay idinka waxaan qubta idinku haysata marka taasi ma aha wax hadda la kontrooli karayo waa xaaladu nafla caarinima la yiraahdaa laakiin waxaan is leeyahay shabaab way ka baxeen wixii hadda ka dambeeyay wixii la yeeli lahaa unbaa muhiimadda ugu salaysan ay tahay midda labaad annagu ka siyaasad ahaan iyo askari ahaan iyo talagalka deegaankan iyo ciidamadan ka dagaalamaya markii ugu horeysay aan ka wada hadalay aan isu sheegnay idinka dawladdan aan idin gudbinay waxay ahayd wadankan laba marxalo weeye marxalad waa in nimankan horta wadanka laga saaro boqolka cadowga wadanka laga xoreeyo cadowga wadanka markii laga xoreeyo kadib haddana waxaa la geli karaa maamul dhisid iyo dadku inay helaan khiyaarkooda waxaan is leeyahay muddooyin badan dadkaani maynan helin waxa ay iyagu doonayaan ama iraadada iyagu ay rabaan iyo isaga wuxuu rabaan taa markaa waxaan is leeyahay wax badan waxaan aad u soo dhaweynaynay in dhulku dadku bal inta iyagu isu yimaadaan inay tuulo walba odayaasheeda iyo dhaqankeeda iyo isu yimaadaan oo dadku iyagu ay ka tashadaan wixii masiirkooda iyo qaabka u xaysmayaan iyagoo dawladdaas dhexe ku xidhan oo iyada lafteeda mataqaanaa tawjiihaadka iyo ishaaraadka siinaysa wax badanna ay qaadanayaan haddana dadku haddii la isku daro la yidhaahdo xabadda hala riday giraangir hala daba wareejiyo wax badan baa dhibaata ka imanaysa waxaa u badan hadda dhibka jirana waxaa u badan xabaddii waxaa wax badan istaakul ku noqonaya haddii la yidhaahdo hala daba wado siyaasad iyo mooshinno iyo kolba dhibaato iyo hala hor keeno wax badan waxay dib u soo celinaysaa inayna nimankan wadanka ay cimri dheerar iyo wax badan Soomaaliduna waa ogtiina waa dad wax badan oo xasaasiyadkoodu iska waxaysan yahay oo fiilay daba wataan maanta reebel tuulo kasta hadda haddii aad tiraahdo systemkeeda kan iyo xusam reebel baa laga tago reebel baa kan la yelo reebel yani konton mushkiladood baynaan ka baxayn inaan markaa isku dayno dadkan inaan qancino wax badan aan doonayno odayaasha inaan talada ay lug badan ku lahaadaano eelarisku iyagu ay wax badan ka taliyaano la hormariyo bal marka hore dagaalka laftirkiisa iyo sidii wax looga qaban lahaa ka bacdina waxaan is leeyahay wax badan baa dib loogu soo noqon karaa la samayn karaa aad baan odayaasha iyo idinkaba idinku mahad celinaya waxaan mar kale u mahad celinaya dawladda Kenya is leeyahay xaqiiqatan wax badan bay markii hore idin kala qayb qaadatay taakulaynta markii dambana ay naf iyo maalba hore u soo gashay oo waan is leeyahay wax badan bay iyada laftirkeedu mahad celin ku mudan tahay waxa ay geysatay iyo talaabada geesinimada ay qaadatay oo ayna ku ekaanin iyada oo maalinba dhibka laga sameeyay ay sir walba dhibkan idinku iska fogeeya Soomaalida dhibka lagu hayana ka kor qaado inay nagala qayb qaadato iyadana waan u bogaadinayna